jooga magaalada marka waa gudoomiyaha degmada marka wax badan oo badan ayaa noo qarsoomay oo xagga nabadeenta ah la kulankii bulshada meelaha kala duwan haddii aan lahayn beelihii dirirsanaa iyo dhammaan beelaha degan marko kulligood quraan ayaa la qaadanay qaybahooda kala duwan ururada bulshada haweenka dhalinyarada culumadiinka intaba quraan la qaadan wara gudoomiye maamuladii ka horeeyay waxay ku fashilmeen sugidda amniga isdhexgalka bulshada muxuu maamulka ugu dawan yahay maamulada ka horeeyay كلنا كهذا إن شاء الله في شغل مرة جيرانو أنت يروح جوجنا أنت على كورني أمتي إنسان قادرني فرحات يرزين يبوادين يروح ولا قصي نسوجين وحين نوير هذا المامور سوى كل الناس تحكي أما برش الله حضره على مر ولا بيراه إلهي ما كاشرين أرنتنا أمورتنا الله يسارن تاي وسنا سوكر هذا الله وبرجن تاي أول سومر ما يراه gudoomiye magaalada waxay noqotay goob dagaal waxaana baaba'ay goobihii waxbarashada iyo caafimaadka sidee loo soo xulin karaa goobaha waxaa loo soo xulin karaa horta awlan magaalada hadda xoogaa waa naftoon tahay dadku waa isdhexmaraa dawal way kala xirneed dawal beeloo dirtay labadu isma dhexmariyeen rag badan oo beelahaas sababtood magaalada ugu qaxay gooboodii ganacsiga cararna way soo noqdeen boqolkiiba 75 dadku way soo noqonayaan marka arrintaas waxaa loo xallin karaa waxbarashada iyo caafimaadkaba adeegyadii bulshada waay haddii aan la helin way dhib badanaysaa marka dadku inay kala sooni marka hore ilaahay ku kala soonadaan niyadooda ku kala soonadaan dadnimadooda ku kala soonadaan maamulkoodana ku kala soonadaan markii qofku kala sooni niyadiisa helo amuurta ilaahay baa hagaajinaya wax kasta camal kasta niyadda waaye waxaan rajeynaynaa in iskoolaadkii dib loo furo goobii waxbarashada dib loo furo dhammaantood maxaan ku idhahdaa dib loo furo caafimaadkii marka intaas waxaan rajeynaa annaguna gacanaha ka siinayna wixii nabadgelyo xumo ah oo markaas aan isleenahay wax bay nabadgelyada u dhimi karaan intii karaanka iyagaa waa ka geysanayna insha allah gudoomiye ciidamo hubaysan aan maamulka ka amar qaadan ayaa ku sugan magaalada maxaad kala socotaa ciidamada dib ma laha xamar ay ku sugan yihiin wax hubaysan meel walba ay ku sugan yihiin oo soomaaliya ay ku sugan yihiin taas wax weyn oo dib ma laha annaga hadda wax dusriya nagu haayaan واحد أنا جسور جيرو هو يسنو عن أقنع هنا مجرو وقتكون ويالا ملك السراء وحاجة صعود قالوا دل القبيل أنتوا واضح واسك صعود لكن أنا هذا حجاره هو يسن أنت نوجا أما أنا جسور جيرو أما فعل قول ولا ما هاي أوكي قدومي ما عاد كلا صعود دل ويل لأن يراه لو جوجست دجانو هستجا معمول هذا أوكي وسؤال آدي أدو في عنوان محسن طيب وأنت أبوي arrintaas waa la socdaa dil anaguma xaqiiji karno laakiin waxaa ognahay wiilgeeda lagala tegay la afduubay taariikh 9 ilaa hadda maqan algeria nolol badda lagu haynin waxaa kaloo maqlaya saakay in qof kale haddana shalim yaasin sidoo kale oo beerali ah marka nasiib xumo waaye waxaan leeyahay labada beelood oo hadda iska dilaya dadka dilmageedyada rayidka shacabka oo gaadiidleeda ama beeraleyda ah waa nasiib daro waxaanu soo jeedinayaa baaq nabadeed gaar ahaan labada beelood in ay arrintaas ka waantumaan adduunya aakhira wax kuwa helaayeen si guud ahaan waxaan soo jeedinayaa gobolka shabeelle hoose soomaalida degan waxaan rabnaa dadka ahlul xalli wal caqdi ah culamaa diinka arrintaas inay u kacaan qof miskiin ah oo aan waxba galasin in la dilo ama dhiiggiisa la galo shareecada islaamka kuma banaana dadkii wax garadkan inay arrintaas ay fiirstaan dambay ku noqonaysaa anoo maamul ahaan afmaamul ku hadlaya waxaan soo jeedinayaa baaq nabadeed oo si guud ahaana soomaalida arrintaas inay wax ka qabtaan karaan waana ka xunnahay dilalkii dhacay waa ka xunnahay dilalkii dhacay waana ugu tacsiyadeynaya insha allahu sawri imaan halkooda allah kasiiyo ayaga dhan la